komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa saaka kala diray gaadiidkii iyo howlwadeenadii ka shaqaynayay qaybinta kaadhka codbixiyaasha gobolka Sanaag oo maalinta berri si rasmi ah uga bilaabmaysa in ka badan 200 oo goobood oo hoos yimaada 5 degmo oo kamida gobolka Sanaag. Komishineer Cabdiraxmaan Diixood oo goobta lagu kala dirayay gaadiidka ka hadlayay ayaa bulshada gobolka Sanaag ku booriyay inay qaataan kaadhkooda muddada ay socoto. maanta oo bishu tahay 10 March 2022 waxaan ku sugannahay jaamacadda Sanaag halkan maanta waxaan ku kala diraynaa 210 goobood oo ka kooban yahay gobolka Sanaag ka kooban yahay 210 ka shaqaalihii komishanka ee ka qayb galayay ciidamadii qalabka siday ee nabadgelyada ilaalinayay agabkii iyo kaararkii dadka loo qaybinayay maanta waxaanu qaybinaynaa kaararkii dadkii diiwaan geliyay 2020 waxa kale oo la socda kaararkii soo noqday 2016 kaararkaasi waxay leeyihiin 40,000 iyo dheeraad oo gobolka Sanaag oo dhan ka kooban tahay Badhan, Dhahar, Ceelgaabo, Ceel Afweyn iyo Garaadag. halkan waxa ka baxay ugu yaraan 200 oo gaari oo qaadi doona hadii ilaahay ilaa shaqaalaha iyo ciidamada iyo qalabkaba alaabtan kaararka marka dadweynaha waxaan ku wacyigelinaynaa oo u sheegaynaa inay kaararkooda u soo diyaar garoobaan inay si qof waliba kaarkiisa u helo uu tago goobtii uu iska diiwaan geliyay marka muwaadin waxaan ka codsanaynaa inaad kaarkaaga doonatid marka taa laga yimaado 7 cisho dambe waxay oolaan doonaan degmooyinka walba waxa la keeni doonaa wixii goobihii wixii soo haray ayaa la keeni doonaa marka yaan laga habsaamin. waxa iyaguna halkaasi geestooda ka hadlay Maxamuud Cali Muuse oo ku hadlayay afka xisbiyada qaranka iyo mid ka mid ah xubnaha guddida anshax marinta ee komishanka. maanta waxa la idin farayaa dhammaantiin inaad si nabadgelyo ah oo nadiif ah oo hufan kaadharkiina ku qaadataan oo qof waliba doonto kaadhkiisii oo xaq u lahaa si wanaagsan oo sharaf leh oo gobolnimada uu kaadhkiisa u qaato hadhowna ugu codeeyo ciddu doonayo uu ku soo saaro qarankiisa qof walba meeshii aad kaadhkaaga aad iska diiwaan gelisay kaadhkaagii ka doono haddii aan la yidhaa baabuurtii waa taabaxayso waad arkaysaan waanay shaqo tegayaan waxaanay qaadeen ardaydii iyo qalabkii bay qaadeen beritoolo inay ka bilaabmaan baa la doonayaa 210 goobood anugu waxaan maanta fariin halkan ka dirayaa marka si nabadgelya ilaahay idinku geeyaan leeyahay dadweynaha iyo shacabka reer Sanaagna waxaan leeyahay dhalinyarada idin timid ee hablaha iyo inamadaba leh soo dhaweeya waxaan kaloo kula dardaarmayaa oo leeyahay beritoolo subaxnimada kaar qaadashadu way bilaabmaysaa si wanaagsan safafka u gala kaarkiina qaata yaanu idinka celin komishanku si aad idinku codkiina aad ugu doortaan cid aad doonaysaan